العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينها قرنka Jamhuuriyadda Somaliland iyo wafdida ballaaran ee uu hogaaminayo waayeelka reer Saraar iyo madaxda gobolka iyo degmada iyo taliyayaasha ciidamada dhammaan marti sharafta salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad uga mahad celinaynaa isagoo madaxweynuhuna maanta si weyn uga mahad celiyey dib ma ahayn soo dhaweyn wixii lagu sheegi karee dabaaldegna laguma sheegi karo oo dee ashqaraar bay ahayd ashqaraar waxay maanta samayseen reer Saraar reer Caynaba reer Wadaamago ilaa iyo intii aan soo gobolka soo galay soo dhaweyn aad iyo aad u la yaab leh bay ahayd goboladuna dee way soo dhoolo tusanayeenoo qoodhay xaladay magac weyn iyo sharaf bay inoo soo jiideen waana karaamaysan raggeygii halkan ka soo jeeday madaxda ahaa aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa milgihiinii iyo sharaftiinii iyo maqaamkiinina waa qaadateen dee waa dhowr jeerna waa ku celceliseen waxaa taan gobolka hala kordhiyey dee waana maalintii dhoweedna kolley waa maqlayseen waxoogaa procedure ah nidaam un baa ka dhimanee wax kale kama dhinna cid markaad wasaaradda daakhiliga oo sharciyadda iyo nidaamka u qaabilsan ayaa hawshii gacanta ku haysa madaxweynuhuna uu amray nidaamkaasun la iswaafajinayo mooyaane madaxweynaha iyo intayada la shaqaynaysaba ugu jecel in darajadeeda la kordhiyo ragga wasiirada ah ee ka soo jeeda gobolka ee Salmaan Warsame iyo kamid wasiirka cadaaladda iyo wasiirka dastuurka iyo xiriirka golayaasha Maxamed Xaaji Aadan habeen iyo maalin kama seexdaan marka amba faydniyo waxba hay farin ay arrintaas horta taagan tahay war wanaagsanna waa maqli doontaan haddii alla ka dhigo soo dhaweynta waxaan si gaar ah uga mahad celinayaa wasiirada saaxiibka ah ee saddexda maalmood naga soo horreeyey Salmaan Warsame Gurey iyo Maxamed Xaaji Aadan oo iyaga laftooda dawcad dhigay ilaa wuxuu yidhi bandar caasi baa loogu go'ayna bidaaro way berrina halaasee nin ragga baqaskii waa ceeb iyaguna dawcadariha ay dhigeen waa ku hambalyaynaynaa badho saabka guddoomiyaha gobolka oo isaguna saa uu sheegay saaxiibkaya 2005 raggii kulmiye togdheer ka wada sharaxnaa baanu ahayn raggii berigaa ugu yaryaraa baanu ahayn isaguna dee ma soo bixin aniguna waa soo baxay laakiin ilaa maalintaas ma bedelin xisbigiisii iyo dagaalkiisii iyo kaambeynkiisii maantana wacdarihii iyo soo dhaweyntii halkan uu ka sameeyey isna waa uga mahad celinaynaa maayarka iyo golihiisa deegaanka oo iyaguna dee waxay hawl gelayeen iyo dadaalkay sameynayeen arkayna isna waa uga mahad celinaynaa dhammaan waayeelka intaa leeg safafka dee 2 kiiloomitir ahaa oo maalintii aanu gebelay dhex maraynay aan islaa talo intanoo kale cid ma soo saari kartaa waxaan isleeyahay baraaba dheerayseenba faanaan wax iskaga dayeen marka aad baa horta taa ugu mahadsantihiin ta runtii waxqabadka waa markhaati furteen inaad dee wixii aan laydin qabtayna ka marakacdeen waxa dambe dee lawaa dowladda mar walba waa waalid dowladdu waa waalid mar walba waxbaa la weydiisanayaa wixii dambena si asluub loo karaamo loo sharaf loo weydiisateen iyadana waa mulge iyo sharaf marka waa dee waa la dadaalayaa haddii alla ka dhigo sidii Siciid Sulubi yidhi weeyaano hawshu annaga iyo raggayga joogay xilka haya hawsha u qaabilsan ayaa kolley hawsha culayskeedu saaran yahay wixii suurtagal la qaban karayo waxba la hadhi mayno qofka mas-uulka ah in la yidhaahdo meesha waxbuu ka qabtay madaxweynaha madaxda taa isagaa qabtay taa waa dhameeyey taasuu ugu jecelaya waruu dhegeysu maqlaan waxaa markaa gaabtaa waa wax tamar loo waayey wax histi iyo dhibaato kale amaaha gobolada barigana iminka wax badan baa ku socda oo annagaa hoos og oo taana waa ku xisaabtamaysaan waxaanu anigu kolley si gaara doonayaa inaan idinku sheego dhowr nin baa waxay soo hadal qaadeen xagga biyaha ee Saraar biyaha Caynaba anigii maanta ka hadalay 5 mashruuc oo waaweyn baa ka socda oo dhammaaday badankooda qaar la socdaan marka gobol loo eego ama magaalo loo eego waa meelaha ugu badsaday dalka xagga biyaha shaariic kala badanina daway socdaan waa aragtaan bangigaasaa ka mid ah shaariicdii badnayd ee maanta dhan la taxayay ayaa ka mid ah kuwii golaha deegaanka iyo maayarku iyo wadooyinka ay sameynayeen baa ka mid ah waa magaalo ballaaranaysa
meel istaraatiiji ku taala oo gobollo waaweyn isku xidha waa lagu khasban yahay inay ballaarato iyo in la dhisaba waxa la qabanayaana haddaa maanta noo mahad celisaan dee waxaa waajibkiinni baa gudateen gobonnimadiinni iyo karaamadiinni baa muujiseen oo tidhaahdeen dee waa ku mahadsantihiin sida gobtu u hadasho weeye laakiin dhinaca kale dee waa laa shukru cala alwaajibo waa shaqadii loo diray dowladda madaxweynaha u doorateen madaxweynena wasiirada uu cogtay waa xilkiina saarnaa markaa taa lafteeda dee wax xusuusanahay oo waa ognahay marka saraar iyo cayn buu ka kooban yahay gobolku biyaha dhowr jeer lasoo hadal qaaday ceelasha saraar ku yaalla ee dhinaca gobolkan saraar dhammaan ceelashu waan wada dayactirnay markaad ka soo bilowdo bale caraale oo xaggaa ugu xiga waridaad oo imika qof sheego yidhi waridaad way fadhidaa waridaad ma fadhido waa shaqaynaysaa waxaa ku xiga garhka imika yar cillad lagu soo sheegay qori dheeraysna waa shaqaynayaa si fiican buu u shaqaynayaa xaggan markaad u tallowdo koonfurta ceegaag 1 iyo ceegaag 2 waa dayactirno waa shaqaynayaan ceelkii wadaamago isna waa dayactirno waa shaqaynaya ceelashaasi muddo dheer bay badankooda fadhiyeen xilligii dhaweeda abaaru soo dhawaayeen ayaanu wada dayactirnay waana wada shaqaynayaan waana waxqabad dee gobolka saraar loo qabtay dhibaato iyo qayla toona kama jirto marka raggii u kala saarayay saraar iyo cayn saraar lafteeda wax badan baa laga qabtay laakiin malaha dee dhulku ceelashu biyahoodu biyo aada u macaan maaha taas lafteeda waxaan idiin sheegayaa qofka aan haysan baa garanayee horta biyaha badankooda xoolaha cabba xilliga abaarta marka xooluhu oonka ay kugu soo arooraan ee geel iyo adhiguba isa soo tubo te xoolaha geelu iyo adhiguba biyahaas ay cabbayaan waana ka cokanaanayaan culayska iyo diifta iyo dhibtina waa ka hadhaysaa xoolaha iyo dadkaba waxaa soo hadhay markaa 95% ama 90 in ka badan biyaha xoolaha cabba culayska reer miyiga haystay dadka haystaan waa culayska xoolo markay ku oomaan inta yaree soo hadhaa waa dhaanka berkad yar baa laga dhaansan karaa kuwaasuu iska manaafacaadsan karaa marka haddaad haysato biyo oo ceelkii kuu shidan yahay oo xoolihii ay cokanaanayaan oo ku waraabinayaan xaraga iyo foodhfoodh baa imika ka hadasheen waxaa taan biyaha naloo macaaneeyo taana waxaan idiin sheegayaa maalin dhow bay imanaysaa sugi waayna